wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Jubbaland Cali Carays Xasan ayaa daafuray kulanka wadatashiga habraacyada dabagalka iibka dowladda hoose ee degmada Kismaayo. kulanka ayaa waxaa soo agaasintay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisiinta Jubbaland waxaana ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda hantidhawraha guud ee Jubbaland, howlwadeenada wasaaradaha Jubbaland iyo dowladda hoose ee degmada Kismaayo. hantidhawraha guud ee Jubbaland Bashiir Maxamed Baahale ayaa sheegay inay muhiim tahay in mar walba kulamo noocan oo kale la isugu yimaado. waxa laga marmaana in mar haddii maamul la sameynayo in la helo wax la yiraahdo isla xisaabtan waa laga marmaan. waxa uu shirkanan maanta daaran yahay waxa weeye in ay soo biireen deegaano cusub. deegaanada cusub waxa laga marmaana in loo helo qaabkii ama systemkii auditingkii ay ku shaqeyn lahaayeen. ومحسن هاي أجسمها جود قاب كونه سوديارية هاوشن وأنا هاول مهمة وحنا لو بهاي هاي مدام أي أنا مرينا إن إنجليش فيرشن يكورين إن لو بهاي إن في الصومالي هدي اللي هلكره هي ده كله مارت لو بدلوا مدام سامين بدن ويالن دونا وضد بدن أي آخرين دونا هدي اللي هذا وحنفلا يا إن هاي هاول هوري لوس قادنين أو سوق waxaan rajaynayaa in dhalinyarada meesha sumid oo tacliinta ah hawshan u yimid in ay dood adag ka yeeshaan si loo soo saaro wax dhaxalgal ah oo legacy ah oo yeelato degmooyinkan cusub lagu bilaabo. wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta Jubbaland Cali Carays Xasan ayaa kula dardaarmay ka soo qaybgalayaasha kulanka inay ka faa'iideystaan waxyaabaha looga hadli doono intuu kulanka socdo. waxaan rabnaa in laga faa'iideysto waqtiga yar ee aanu helno in aan maaragtay barnaamijyadan la helo in dadka ka soo qaybgalayo wayna ku shaqayn doonaan tababarrada way ka bixin doonaan. marka waqtiga yar ee la haysto shirarkan oo kale aan ka soo qayb galnay seminaarada ah in laga faa'iideysto baa laga maarmaana. waxaan idin leeyahay ka faa'iideysta noqdo kuwii ka faa'iideysta ee sii fuliya ee dalka iyo dadka wax ugu taro. waxa waaye dawladnimadu waa isla xisaabtan. dawladdu hanti bay leedahay way ku shaqaysaa oo dalka ama ka soo saartaa ama caawimada ku heshaa. haddii aan la daba taagnaanin oo aan wax dhowro oo la xisaabtamo aan la helin haddii qof walba wixii ama dalka ka soo baxa ama caawimo ku helnay sidoo rabo u isticmaalaya. marka waxaa la idinka rabaa sida aad hantida dalka u dhowri lahaydeen in aad ka faa'iideysataan. programkaana ma aha kii u dambeeyay ee in intii la akhristo oo la arko wixii ka bedel iyo wixii ku daris leh maaragtay la isweydaarsado si wax looga baaraan degay oo aanu u gudbino degmooyinka. Maxamed Soomaali, Jubbaland TV, Kismaayo.